difaaco laga bilaabo imika ciidanka boolisku wax amar ku qabaa inuu nimanka talaabada ku habboon ka qaado sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa mahad oo dhan iska leh islaam inaga dhigay nimcooyin badan oo kale inay siiyay ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu maaragtay waxyaalaha socda ee maaragtay dhibaatooyinka ilaahay naga saaro waxaan rabaa inaan idin iftiimiyo ama aan ummadda u iftiimiyo in imika 30 cisho ku dhawaada ay soo baxday jabhad hubaysan oo dalka khalkhal iyo dhibaato doonaysa inay geliso kana soo horjeeda systemka iyo nidaamka dhisan ee dawliga ah iyo qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland sida ay u eeg tahay sababtoo ah amnigii bay khalkhal gelisay dil bay geysatay dhac bay geysatay xasiloonidii iyo kala dambeyntii bay doonayaan lumiyaan taa macnaheedu waxa weeye inay doonayaan qarannimadu inay khalkhal gasho laga soo bilaabo muddo imika 30 cisho laga joogo jabhad hubaysan ayaa gashay buurta gacan libax nimankaasu 30kii bishii 7aad ciidanka booliska oo abni meesha u tagay sidaynu ka dheregsanay ciidanka boolisku waxay shaqooyinkiisa ka mid ah inuu ilaaliyo public order-ka iyo xasiloonida iyo nabadgelyada markii la maqlay halkaa inuu niman hubaysan galeen wiil kadib iyadoo intaa la eegay bal waxaas waxay meesha ku intoonaysa in la eego ayuu ciidanka boolisku tagay jiida meesha Darimara la yiraahdo iyadoo la doonayo in amniga la sugo sababtu u tagayna waxay ahayd annagoo ciidanku boolisku ka duulay siyaasadda dawladda ee madaxweyne odayga u yahay ayaa jabhadaas markay meesha gashay waxaan lagu amray inaanan ciidan ka daba dirin laakiin waxa soo dhacday inay niman meesha marayay oo irga ugu tagayna aftuubeen uurta la galeen waxoodiina ay ka furteen sababtaas uu ciidanka boolisku meesha u tagay soo u sugo amniga iyo waxyaalaha kale dhibka ay geysanayaan laakiin iyaga inay u tagaan iyo inay weeraraan iyo amar kuma haysan ciidankaas talaabada ay qaadeen waxay noqotay in ciidankii soo weeraraan ninka dilaan ninna ka dhaawacaan maadaama ciidanka booliska aan amar lagu siin annaguna aan amar dawladda haysan annaguna aan amar ku siisin ciidanku wax dilaan ciidanku waxba may u geysan talaabo may ka qaadeen taas mid baa talaabada xigta 9kii bisha 8aad intay ka soo duuleen halka iyagoo laba gaari wata ee magaalada Dabagorayaal tagay customkii bay khalkhal geliyeen oo doonayeen baadhaan lacag ka waayeen 4 askari booliska ay qoriye ka qaadeen laba gaari oo hay'adda halow tarees ay leedeen way soo kaxaysteen waxa intaa dheer meesha la ood weynay inay askartii booliska halka joogteen isku dhaceen oo markay arkeen ciidankii ay xabad dhaawaceen ku dhufteen waxa ugu dambeysay maanta way tahay bisha 11 ciidan boolisa oo ilaa 30 nina ilaa 35 nina oo magaalo labada go'ood u kala socdo goda yar ku socda ayay dhexda u galeen ciidanku waxba kama ogeyn iyagoo xoogan oo tira xoogana ayay dhexda u galeen ciidankii iska baraadla ayay laayeen 9 askari bay dileen 17 askarina way dhaawaceen waxa inta dheer in ceeri gaabo iyo burco iyo Hargeysa mudaharaad laga bilaabay mudaharaadkaas sidoo u bilaabmay saaka ilaa imka uu socda imka aan idin hadlay uu socda Hargeysa uu ka socda burcana uu ka socda ceeri gaabo inuu damay waa laga yaabaa imka aanu ka socdo laakiin galabta waa ka socda arrintaas waxay dhaawacaysaa amniga waxay ka soo horjeedaa xasiloonida shaqooyinka ay ciidamada boolisku mas'uul ka yihiin weeye iyo ciidamada kale annagu ka duulayna siyaasadda dawladda amarka madaxweynaha iyo amarka wasiirka arrimaha gudaha ragga 3-4 goor talaabada qaaday koow markii uu ciidamada dhalinyarada irgada wahayd aftuubay ee hubkiina ka qaaday wixii ay siteen iyo gaadiidkii
markii labaadna booliska intay 30kii bishii toddobaad ku soo daadigeen ninka ka dilay ninna ka dhaawacay markii saddexaadna intay missionka daba goryaale fuliyeen waxna dhacay waxna dhaawacay gaadiidkana ka haystay markii afraadna maanta ragga intaa leeglaayay ilaa imika ilaa saacadda uu dagaalkaas dhacay wixii ka horreeyay amar dagaal oo la bixiyay oo in nimanka la dagaalama la bixiyay mu jiro annagoo ka duulayna siyaasadda dawladda ee madaxweynuhu odayga uu yahay wasiirkuna annaga odayga loogu sii yahay ciidanka booliska wax talaaba ma qaadin aqliga dadku nin kasta uu garanaya iyaguna guushay doonaan ha tirsadaan way garanayaan ciidan tababaran oo meel jooga 300 nin ka badan baa jooga ama 500 nin ka badan baa jooga area oo ciidan boolis inaanu ciidankaas ka itaal roonaadeen ama aanu qabqabteen aanu talaabo ka qaadan cid walba way garanaysaa sababta keenaysa waa laba wuxuu ciidanku iska celiyaa waa inuu dareen colaadeed ku jiraa uu dareen cadow ku jiraa waxaas waa cadow iska celi leeyahay oo uu sarkaalka meesha jooga go'aan qaata markii dhibaatadu la koronto taas waa qodob ciidanku waxba iska celiyaa markuu amar cidda ka sareysa ka helay waxba iska celiyaa ciidanku labada qodob midna mu haysan amar madax ka sareysa anna amar ma siin madaxda ka sareysa anna amar ibaysi ciidankuna dareen colaadeed oo nimanka ku eegay muu qabino kuma jiro marka cali ka tahay waxaan u sheegayaa cid kasta maadaama imika arrintaas u dhacday oo ciidankii booliska la laayay ciidanka booliska waajibaadkiisu waxa weeyaan inuu isna istifaaco qarannimadana difaaco laga bilaabo imika ciidanka booliska wuxuu amar ku qabaa inuu nimanka talaabada ku habboon ka qaado maaragtay ayuu amar ka haystaa siina eegan maayo waajibaadkeygana waxa weeyaan inaanu dalka arrimaha wixii gudaha difaacno waa waajibaadkeyga ciidanka boolisku waa abuuraya waxa kaloo waajibaadkeyga mudaharaadku markuu luminayo public orderka wasaaradda ayaa sharciga qaabilsan waanu ka hadalay daraad habeen hore hawlgelintuuka jananka hawlgelintuu ka hadlay inaanay amar soo qaataan tii oo dhicin bay soo sadayeen iyo mudaharaadkii sameeyeen ciidanka booliska waajibaadkiisu public orderka inuu ilaaliyo weeye waanu ilaalinaya waanu ku filay mas'uuliyadda waxa qaadi doonta waxaan ku ururinayaa hadday halkaa tahay iyo hadday mudaharaadka tahayba mas'uuliyadda waxa qaadi doonta ciddii soo dirtay ee mas'uuliyadda qaadi waana iska cadaan doonta laakiin aniga waajibaadkayga waxa weeye halkaan ciidanka boolisku ka jawaabi lagu laaya maanta halkan kalena ciidanka boolisku amniga uu ilaalinaya dadweynaha waxaan ka codsanayaa waa naftaadeenna aniga ha jibin amnigu nin walba aday dantaada tahay dhibaatada aday ku soo gaadhaysa inankaagu aday wax ku dhacayaan inantaada wax ku dhacayaan ganacsigaagu aduu xumaanaya nabadgelyada booliska la ilaaliya iskarab taaga magaalooyinkan la fawdaynayo dadka odayaasha iyo dadka caqliga waxaanu ka codsanaynaa in dhalinyarada gacanta lagu dhigo intaanay ka sii fogaan intaas